kulanti wacan wanaagsan akhyaarta naga daawata janaalka tusmada filmada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub ee soo kala armaha dhacdooyinka xiisaha leh kuwaas oo aan ku qaada dhigno warbixinada xiisaha leh ee armaha Bollywoodka kuwaas oo san waxa ahayn ku ala wadaaya kartiin daawadaashana ku taxambarta tusmada filmada allaban waxaad ka imaad celinayna sidoo la falgashan warbixinadana soo kale aan leegtay asxaabtiina u la wadaagtaan meel walba oo joogtaan waxaan leenahay ku soo dhawaada warbixintan waxaan ku qaadaa dhigdana filimka Gadortu miyaa sahal isku soo imaanshaha in ay dib u midoobaan familka reer Dool kuwaas oo Dhalamandra iyo Hema Malini qoysaskooda Gadortu ayaa waxa uu noqday filim si weyn ku gadmay qaybaha tiyaatarada kaas oo ka dhigay sanadool in uu dib marka lagu soo laabto qaybaha saashada waxaan filimkaas oo noqday filim blockbuster hit ah waxaana tiyaatarada ahaa mid uu ka dhigay mid daawadayaasha dib ugu soo celiyay taageerayaasha ay soo kale waxay ku jecel waaliyaha uu qabeeyeen jilaagan taas oo sidoo kale ay kala soo muuqata filimkaas Amisha Patel iyo Utkarsh Sharma Simratro iyo kuwa kale kuwaas oo door muhiim ah filimkaas ku lahayn xitaa filimkan oo subuucidiisa marka laga soo tago koowan ee ku kale ka xiiso badnaa iyagoo sidoo kale ay rikoorooyin badan ay soo kordhiyeen wararka la xiiso ayaa jirta markaan in filimkan Gadortu guushiisa ay ka dhigtay in markale dib u mudoobayso familka reer Dool waxaa jirta warar kuwaas oo soo baxay in Sandool xilliga wiilkiisa Karan Deol oo guursanay taas oo Hema Malini iyo gabdhaheeda ee laga waayay goobta xafladda dabaaldega ugu dambeyn Isha Dool ayaa waxay soo dhigtay post ee uu hambalyeynayso labadaas is guursaday wiilkii eedada u tahay waxaa sidoo kale jirta maqnaanshooda ee qaybta xafladda in ay noqotay mid laga hadlayo qaybaha Bollywoodka asaatay Isha Dool ay waxay noqotay mid aad u soo dhaweysay guusha filimka Sandool ee Gadortu waxay ahayd waqti dhif naadira in la wada arko Isha Dool Sandool Baby Dool iyo Hana Dool kuwaas oo hal filim ka soo wada muuqday xilligii shaashadeynta loo sameeyay filimka Gadortu taas oo xafladaas ay qabatay Isha Dool waxaa jirtay muuqaal oo Hema Malini internetka ka soo muuqatay kaas oo galgal kadib markii ay taxaliilin ku sameysay filimka Gadortu waxaana amaan ugu qabeysay wiilka Sandool kaas oo ay dad u tahay isoo kala soo laabashadiisa ee qaybaha tiyaatarada waxaa soo kale filinaadir ahayd in Hema Malini ay ka hadashay Dhalamandra caruurtiisa isoo kale xaaskiisa koowaad ee Prakash Kaur kaas oo fiidiyogaas oo noqday mid fara ka dhex noqday qaybaha Hindiya Dhalamandra ayaa waxa soo dhigay fiidiyo kaas oo kaga hadlay inay tahay riyo rumood ugu dambeyn waxaa jirtay in xilligii shaashadeynta loo sameeyay filimka Gadortu Sandool hooyadiisa Prakash Kaur iyo Dhalamandra ee noqdeen kuwa tiyaatarada lagu arkay waxay soo kale isku jir ah ugu imaadeen Karan Deol gurkiisa waxa in soo kale markaan la salaad qaada in Isha Dool markaan ay fursad u heli karto in ay u xirto xiriga raaqi kaas oo Sandool ay u xirayso sanadkan taas oo soo kale sheegay in Sandool wixii hore oo iska hilmaamay markaan uu diirada saar doono mustaqbalka waxaan soo kale u arkay in sanadkan u dabaaldega maalinta Rakshan Bandhan in Isha Dool ay u xirayso gacanta ee walaaltinimada maalintaas la isku xiro xilligii Hema Malini ay soo kala Dhalamandra ee jacayl wada wadaagayeen ayaa wuxuu ahaa Dhalamandra mid kol hor qabay Prakash Kaur wuxuu soo kale ahaa aabadhal Sandool iyo soo kale Baby Dool waxaa soo kale jirtay in halaaba waraxan ee la qoray taas oo ah in dhibaatooyin dhex yeelan Hema Malini iyo Sandool hasaata buuga loo hadlay taariikhda Hema Malini ayaa waxa ay ku qortay inuu yahay wiil daacada waxay soo kale sheegtay in uu yahay wiil ku fiican xagga xiriirka waxaan soo kale sheegtay inuu yahay wiil qurux badan sidoo kalena ah daacada markaan waxa loo arkaa filimka Gadortu inuu yahay filim mideeyay qoyska reer Dool kuwaas oo dhibaatooyin dhaxda ay ka jireen waxaana soo bilaabtay markii Dhalamandra oo xaas soo qabo in xaas kale uu guursaday intaan ku soo kooban warbixintana hadda keeshan leega noo saar soo asxaabtina wadaaga oo kuma sinta laabsan muuqaalada oo daawataan kan kiis xigna sidaas iyo nabadiino